ujeedadan kubin xukuumadda koonfur galbeed waliba waa in qof walba muwaadinka Soomaaliyeed oo reer koonfur galbeed uu isku noolaado nabad iyadoo taasay la go'aanba qaada wasiirada amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo walbarashada Israa'iil ciidan iyo kormeeray saldhigyada ciidamada ammaanka iyo kaleeyeen banaanka magaalada Baydhabo meelanjarta 25 kiiloomitir yadeeran wasiiradan iyagoo lacaganka deeqan ciidamada ammaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Yunis Aadan Xasan taliyaha ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed yaa mahadnaqay golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed kaalintiyo ka eedan dhiirigeliyo ciidamada ammaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed meelan una hadroogna waa meelii harunti daraawiishti oo magaalada Baydhabo yaad ku deganayti iyo waliyoon deganina aniyo nabad waliba reer koonfur galbeed ku qaadaan ani oo waliba waa nimanta ardaawe oo argagixisada hay oo dhiijo waliba ummadda shacabka iyo waliba iyo muwaadiniinta oo reer koonfur galbeed aniyo dhiijo horan oo dhidido horan oo nafti horan oo anti dadkaas wala deerifadan aniyo wala deeran yaa ku door badan waliba anti iyo 10 kilomitir belkiyo deganaadan hamiin maalan iyo hamiinki dhaanka dhiid maalintiin irinka dhiid waliba anti deganyin saaso daban reer koonfur galbeed waliba waa ciidan fayl qaban hadina qadafadi military hadina qadafadi police hadina qadafadi daraawish iyo hadina qadafadi nabad dhamaantiyo waliba una iskaaladaan oo dawladda ay kaaladaan wasiirada ay kaaladaan wali oo marwalba ansurna ani una nabadgelida ku shaqeyn nabadgelida shaleediya ma tambay dhawlay ma ani una degmooyinka dhan oo meel kasta degmooyinka meel kasta una roogna sanata tankarga haytan ku sii doranya waliba roondalinka galaa ya amaansha liisuga meel walba oo ciidamada daraawiishta roogan yoon wali kumidayna qaybti daraawiishta oo Baydhabo ku roogdi ya kumidayn ciidamada kale oo reer koonfur galbeed daraawiishti iyo nabad sugidii iyo booliska la howlgalaas saas dartiye kaalintii ku lahaayaan ku qaadahayaan qof miinkeedeega hayaan shakhsi miinkeedeega hayaan dan shakhsi oo iyo shaleed miin roogan dan tuguud oo dawladda iyo dalka iyo dadka yaan roogan afayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed Mustafa Macalin Isaaq Garawey ya tilmaamay in muhiimadan kubin yeeta garab surmowka ciidamada shal duwan ee inteegan ammaanka dalka wasiirka amniga gudaha koonfur galbeed Mudane Isaaq Al-Suuq iyo wasiirka waxbarashada koonfur galbeed iyo taliyaasha ciidamada sida taliyaha ciidanka daraawiishta koonfur galbeed taliyaha nabad sugidda koonfur galbeed gobolka Baay taliyaha saldhigga iyo saraakiil kale oo ku tirsan ciidanka booliska iyo saraakiil wasaaradda amniga ku tirsan yaha wada bixin mayn lahan baahin sidii lan ogaada lahaa ama lan koor gal lahaa amniga ku jar koonfur galbeed guud ahaantiis iyo gaar ahaan caasimada ku meel gaar koonfur galbeed saasoo kalmay la dhiirigeliyaha ciidamada oo howlgalka ka jara geesiyaasha amiin maalan nafti oo horahayan sidii dalkan nabadlanku yeedfadi nabadlan ku hafadi nabadlan cibaadaysada may ku guud jarnaa aakhirkii ramadaanka tumanka dambiga ka jarna tumanka in ka fadl badnaay tala ka jar saas daraadee ummada ku nool magaalada Baydhabo mayba ku guud jarana cibaadadii meelin ku xoog badanaaytay hamiinki may ku dhafarayaan masaajidada saas daraadee may xil isku saarana ciidamada iyo saraakiishi iyo guud ahaan dawladda koonfur galbeed oo ku horeeyay madaxweynaha koonfur galbeed Cabdiaziz Xasan Maxamed lafta gareen dhamaantood may xil isku saarana sidii oo amniga guud ahaantiis lan koor galay hadda may ku sugnaa rog ciidan oo ciidanka daraawiishta koonfur galbeed roogan oo injarta magaalada 10 kilomitir iyo abaf ku badan yaroogna oo lan ka soo banqaya may unkoynay sidii xaaladii amni iyo un socod lahayn sidii un howlgal lahayn iyo dhiirigelintiyo eedeedan kuma hasanyin wasiiradii oo xilkaas ku saaray guddigii oo golay wasiirada hayay oo hamiinadun howlgalka jaran dhamaantii uma hadnagaan oo ku hadlaan afka wasaaradda amniga maadaama ay garab si hayaan kaalin ku qaadayaan amniga koonfur galbeed eedeedan kuma hasanyin shaqo fayla qobadan wasiirka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed Maxamed Yuusuf Xasan ya sheegay in golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed markasta iyo hil iyo hooyo la garab surinyin ciidamada ammaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed
shacabka reer koonfur galbeed waxa weeye waxaan ugu bogaadinaynaa inay si amni ah ay ku soomaan salaadooda taajidka ay ku dugtaan iyo taraawiixdooda insha Allah annagana waxaan jecelnahay mar walba inaan ka shaqeyno arrimaha amniga oo aan dardar gelino waqti walba waxaan u qaatay mana ku soo koobi doono bisha Ramadaan oo kaliya amnigan sidaan ayuu u soconayaa golaha wasiirada dhamaantooda waa ay mahadsan yihiin sida ay ugu qayb qaateen waxa runtii amniga ku qornaa anigii wasiirka amniga iyo wasiirka waxbarashada aniga ah runtii waxaan jecelnahay arrimaha amniga inaan aad iyo aad u dardargelino sababtoo ah waxa weeye amnigu waxa weeye waa astaanta koowaad ee dalka weey dalka hadii la doonayo inuu horumaro waa in laga taliyaa marka ugu horeeya arrimaha amniga ee security-ga waxaan u mahad celinayaa ciidankeena reer koonfur galbeed Soomaaliya oo mar walba u soo jeeda inay wax ka qabtaan arrimaha amniga oo ay dardargelinayaan amniga inay sugaan iyo security-ga inay adkeeyaan aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin muddooyinkii la dhaafay golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo kormeerayaan bar kontaroolada ciidamada ammaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo kaleeyeen banaanka magaalada Baydhabo Ali Ilyas Cabdullaahi warbaahinta dowladda koonfur galbeed magaalada Baydhabo